weliga ma maqashay adduunka intaa joogtay webi qoryo wada qoryo xaawada dabka lagu shito ama lagu magacaabo nahri al-Hatab. haddaba waxaan idin wadaa webigaas ee ku soo dhawaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan asxaabteena Rawaan Channel. waa Abu Rawaan oo idin leh habeenka idin wacnaado ku soo dhawaada mar labaad channelkeena. waxaan caawa idin wadaa arrin ka mid ah Ilaahi subxaanahu wa tacaala abuurkiisa. Ilaahi subxaanahu wa tacaala isagaa koonkan dhan iyo waxa dul saaran iska leh oo abuuray. waxaan arki jirnay bad oo biyo leh oo kalluun laga soo saaro, webi kalluun laga soo saaro ama kalluun badan wado oo kalluunka meesha dadka ay kala soo baxaan. balse weligaa ma aragtay webi sida raxan oo ah xaawada dabka lagu shito ama xatabka sida ay u yaqaanaan ama qoryaha dabka lagu shido. webigaas waxaan u maleynayaa markaan videoga daawanayay in waxa dhex socda ay yihiin kalluun oo dadka ay maaragtay dadka qaar baa shabaqay ku soo ridanaya, dad qaar baa dambiil ku wata oo banaanka soo saaray, dadna qaar waxay isticmaalaan gacmahooda oo waxay ula soo baxayaan banaanka. webigaas wuxuu ku yaalaa dalka Afghanistan. webigaas subxaanallah meesha uu ka keenay qoryaha intaas la eg ama xaawada intaa la eg arki doontaan cid garan karta ma laha oo Ilaahi subxaanahu wa tacaala aan ahayn. haddaba ku soo dhawaada oo nala daawada. waa kana videoga ay idin sheegeen. Allah Tusewa Daisar largi Daisar da kana warka da wurki Yunus kaniwri Allah तो दिन की जाफा ए वर्क्यार वाखिजा ए उड़ी दे वर्क्या ए ममार वाखिजा और वाखिजा नूरा उड़ी मो ए वाकना वो कुम लरगायदा كم لرجعنا ده؟ وتوازن زسيخ وتوازن. تاني ولا ده؟ دابا ولا وري. دابا ولا وري. يوي ولا چٹي اغما كوا. وما ماذا چمرة لرجع ده؟ ولا زاخلر قاعدين كم لرجع خلنا ده وصليا ده بشوان ده دمر لرجع روبي كارا وريزه ولا ده سيخو تنسال بلي ورا ما ده غوت لرجع تيمان ثاني أخيرا سيدا أركيسان هذا خلق الله وحن وإلهي وحي أبوري إله سبحانه وتعالى isagaa wax walba awooda. ilaahay wuxuu awoodaa badahan arkayso dhan in uu ka dhigo ciid ama wado uu ka bixiyo. quraankan oo lagu sheegay qisooyin badan ay ku dhacday sida qisadii nabi Muuse alayhi salaatu wasalaam markii jeeshka Fircoon ay soo eryanayeen oo nabi Muuse alayhi salaam la amray in uu shid ku dhufto badda kadibna ay badii wado noqotay. markay gudbeen qoom Muuse ay Fircoon iyo ciidankiisa ay soo galeen gudahana badii dib ay u soo laabatay. waxaa jira badan oo wadamada Yurub ku yaalo oo isu bedelay saxaro ama meel hawd ah. marka Ilaahi subxaanahu wa tacaala facaalu lima yuriid jalla jalaaluhu isaga ah sameeyaha wax kasta oo uu doono. Ilaahi subxaanahu wa tacaala wax walba koonkan saaran Ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh. kullina isaga u tasbiixsadaan wa in min shay'in illa yusabbih
bixamdi shimbiraha geedaha webiga arkaysaan hadda aad soo aragteen qoryaha waday badaha geedaha shimbiraha xayawaanaad kale iyo bani aadanka inta ilaahi subxaana watacaala aaminsan isaga u tasbiixsan subxaana watacaala marka qisadaan jeclaaday in aan idinla wadaago webigaas maadaama janaalkeena uu waxyaabo badan oo cusub u ballan qaaday in uu asxaabta nagu xiran usoo bandhigo marka macrifadaada ama garashadaada in ay kusoo biiraan waxyaabo fara badan oo dunida ka jiro aan dalkeena ka jirin aad ay u fiican tahay aad u mahadsantihiin waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad janaalkeena subscribe iyo like iyo share intaba aad noo saartaan waa abuurawaan oo idin leh aad ay u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu